السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ميلو بأدونك كجوكتين ولكن الدقو كانالك أيجا داونيسين وكانالك أيجا الدقو سودو بعد أصحابي ميلو بأدونك كجوكتين وحا إذا رجينا عافيمات سيدا أني عافيمات أو قبهورتين أو سوف ديستي maanta ma jirto wax la dhahayo TikTok gacanta gelinayna wixina u soo baxan ka hadlayna maanta waxaan ka hadlaynaa arrin run ah arrin xasaasi ah oo social media iska badaaye meel walba ay qabsatay asxaabay waxaa jiro wiil la dhaho magaciisa ii sheeg AJ family wiilkan wuxuu degan yahay qurban meel oo ka degan yahay Mareykanka inay tahay jeclahay waxaa jirto hooyo Soomaaliyeed oo soo sheegatay ay dhahday wiilka aniga ayaa dhalay wiilkaasi wuxuu iga dhumay waqtigaas calaamadaas uu leeyahay wiilkan muddo badan aan baafinayay waayay kadib waxaan ku dhex arkay social media waa hooyo Soomaaliyeed iyo gabadheedu asiga sida la sheegay ee walaashiis ay tahay gabadha marka videogaaniti aan isla wada daawano aan isla aragna bal dadkan waxay sheegayaan waxay ku aragtay meel oo maqaayad ay ku aragtay intee ku taala maqaayadaas maqaayad waagaas buur xakabay ku taal marka wuxuu ku dhahay dad kale ay wata hooyo wuxuu yidhi hooyo aniga maxay heeto meeshana maxay heetaa maxay heet maadaama annagana na raadsanayo meeshaan ciddaana maxay heeto aan la joogayaa maxay heeta aan la joogaa huu yidhi marka yeentaarta waagaas waa la raadsanay oo daaroodnima laydin dilay هذا قبيل الراتسنا يا مو هاي قبيل راسنا حيدي وايه كذب أخباري سيكو سيدا هويدا مخليسيد gabadha hadlayso macnaha AJ gabadha ka weyn sida la sheegay hooyada dhinaceeda fadhida hadlayso wiilku waxa dhahaday wuxuu naga dhumay markii noogu dambeysay wuxuu joogay buur hakabo meel maqaayad ah qof family ah ayaa gacanta igu hayso inta oo soo wac telefoon ahaado xiligaas inuu telefoon jiro ma u maleynayo taar inay tahay u maleynaa ma aqaan wuxuu u sheegay inay family ay haystaan oo na rabo familygaas inay uu la noolaado maadaama oo dagaal xun oo jiray oo qabiilka oo asiga uu kasoo jeedo lafta oo asiga uu kasoo jeedo la raadsanayay marka oo familkii oo dhan ba oo nin walbo meesha ku badbaadaysid aad oo isdhaxay marka wiilkii familkan oo kulli oo wax haystaan oo dhisan oo arkay maybe inay ciyaal la'aan ay haysan waa laga yaabaa cunigii adiga ay ka heleen marka wiilkii familkii oo sidaas oo ku raacay macnaha sida aniga hadda hadalka hooyada familka aniga aan ka maqleyno aye هشام برجع على تحسين ساعة أخبارت إن كان كل هالشيء فهمسي waxaan ku helnay akhbaarkiis maadaama maamada dhowr meelood ay tagtay oo inta aan ahayn hadda ka hor ay tagtay oo ay ka baafisay hataa riyaal ay u tagtay maxay ahayd rogtiis anaga intaan ku aragno oo maxay ahayd qadkaan aan ku aragno وايه markaan aragnay inuu wiilkayna yahay aan u qabna ilaa ay hadda kama quursan markaan aragnaba waa nagu soo dhacaa wiilkayna inuu yahay aan u haysanaa haddeerna waaba yahaba wiilka in waa yahay وايه فرحي الناس maxaa ku daraysaa maadaama uu qof journalistaata xagaaga ظاهر معلومات طبعا وانتي هوري ان وباهني يو انتي كلو حلي ان ku daray wax intaas in abshir la moogid abshir magacaas ya may inuu magacaas ku joogo oo Cabdiqaadir Maxamed Jaamac ku joogo ma hayso xogtaas okay
marka anaga intii horay wax kaloo ziyaada aan ku dareeno ma lahan dabcan haddii oo intii le aan ku soo celcelinina wax micno weyn ah ma soo kordhinayaan laakiin waxaa micno soo kordhinaya xogihii hadda aan nala wadaagtay iyo waxa xiga talaabta xigta in la sameeyo ay tahay maamadii dabcan waa ay fadhidaa abaayo sidoo kale way fadhidaa waxyaabaha marka la isku soo aruuriyo hadaladii kala duwanaa iyo baaritaanadii la sameeyay maxaa next xigi kara inaan ka wada tashano muhiimadda intaas way caawa horta ninkii markaan qiimeeyo ninka uu kala hadlayaa qalqal ka muuqdo cabsi ka muuqato lugta jecli ah ciddi wuu rabaa markuu hadlo haddaata ku daawasii kara wuxuu leeyahay maamada been ma sheegayso waan arkay klibkaas waxaa kaloo ka soo baxsada hooyadii afmaama ay ku hadashaa ما فهمت هذه؟ هو يدي أفهمك يكون سواجد. أوكي. نينكي نين واحد يدلنا معها، نين واحد أقلنا معها. آديات. مركز عطفي سحال مركز قيمي أنا إنه أسرع شكينا وحقيقة في نيوسن ويجي سلا شكيستا. بور لا جو جاخريا مركز قف شكينا أيوه وعنكم مشغولة هذا هذا مركز شكيس ويجي عنكم مشغول صنع عند بعض. أوكي. نينكي واحد هاي waxaan ogolaa xitaa inaan telefoonku wada hadalno marka aniga waxaan qabaa qodobkaas telefoonka in lagu wada hadla ah intaan uu baqayaay aan aqbalno waxaa la muraadkaaga waxaa la yidhi masale ayaa loogu seexdaa maadaama aan dan leennaha oo hadda waxaa dhici karta ninka hadda hooyadii waa iska qof daa weyn in tii rabbi u timaada dhici karta iyadoo aan ku faraxsanayn iyadoo faraxsanayn iyadoo wiilkeedii gacan ku hayn أيضا ويلكي يسعفن أيضا ويلكي إذا قلبك يسكرين أيضا ولا حلين إن يتير بأتوا على دعكت تير ربي أنا قردنا مركز طي ساعة مركب حقبة لكن مركب حقبة وحقنا كذا إن أنت ناسلنا عنك أون أقبلنا إن هذا عادي إيو مع ماذا يسجل تلفونك سوق الشان أو الهرشان قرته ينقبا مركز حتى تلفونك يا صدريا مودة جلسين ولا حلا بروحوا ورده أن أقال إنك استوحى يجري أنا محن أهي أنا ما أهي أنا سيم متقنا دي أنا أقولك أنا أبا ويري هذا وحدودي سماعها أنا إما دي أنا مرة لكن يقول لي ده سنجرا أبا نقضي المهم يجلس تحت بنجرة سيدي أنا حتى لا يمسينا hooyada waxay leedahay familiga wuxuu leeyahay wiilkaanayti shaki nooguma jiro inuu wiilkeena uu yahay waan hubnaa 100% waa hubnaa dadaa dhihi doono waa ogahay muxuu ahay daahir calisow waa soo aamintay video ma aha waxaas sheekadaas ma aha sheekada daahir calisow ma taagno aniga videogaanayd waxaan usoo qaatay waxay tahay يعني فاميلكي فيديو أرمي بدنا على هاللو يا لكن شكل داير على سوي أدوك دنا قبستي ما أنت أرنت ويل كان خوف أنك هاللينين ملهان حتى وحنكو أركي دات أن ويلي سوشيال ميديا أنكو أركين تيك توك أنكو أركين أسكسوقاتي أرمي هانكو هذا هالله أدوك أو دنا وكيل جلين هرت ميل دار قفوت اسكو راعدي dadkii dhanaa isku raacaybo ma fahanteen marka haddii dad badan meel ay iskugu raacaan laasim wax la jiro meeshaas wax baa ka jiro ma fahanteen wiilkani wuxuu taagan yahay aniga si gooniya rabaa inaan ula hadlo DNA ma rabi inaan qaado arrintaas run ahaantii runay u muuqataa hooyo horta been ma sheegi karto dhiigana ma dhumo ma fahantay ninkaana shakiyaa ku jiro shakiga ku jiro waxay tahay okay waxaa la niyaho waa lagaa shakiyey dadkaasaa ku sheegteen soo ma ahan dadkaas anay sheegteen soo ma ahan okay waxay rabaan waxa anay ahay inay ogaadaanay rabaan soo ma ahan okay hooyadeedii aabeegaan soo fadhiisanaane hooyo anigaa ahay ee abtiray adiga hebel atahay saan atahay xilligaasaa dhalatay waxaadna way ka harayaan
فهمتي صور موقد ها سؤال كدن هدو uu keeno meesha DNA soo galeenin shakiyana soo galeenin ana ku dhalay isaanan soo galeenin laakiin AJ shakadan dhan wuu ka gaabsanooyaa ma fahantay DNA xaqi idig family joogo aniga waa kana familkii laakiin haddoo AJ oo asiga uusan rabin macnaha familkiisa inuu keeno DNA-ga intii lagu wadabo waxbaa jiro DNA iska soo qaadba intii lagu jiro waxbaa jiro meeshaas shakiya ka jiro ma fahantay marka cunigan adiga wuxuu sheegay arrimo oo aad u kala duwan oo sheegay wuxuu dhahay muxuu ahaa aniga marka 14 sano aan jiray Soomaali aan joogay macnaha walidkayga boorsadeeda yar aniga wax aan gashanaa shilmadeedii wixii aan gashanayo ayaa iga dhumay aniga kama warhaay laakiin xiligaas waxaa la dhahay wax walid ah wax boorsa ah maba isticmaalin ciyaalka taada kalena mara wuxuu dhahay sanadkoo ahaa hadduu inta ku jiro waa isla arki doonaa wuxuu dhahay xiligaas waxaan joogay Puntland waxaa la dhahay xiligaas maba aas-aasaneenbo maba jirinbo dadaas soo barbaaray sanadkii oo asiga oo macnaha familka ay sheegeen 81 inay tahay umaleena sanadihii markii la kala jarjaray waxa iskugu yimaaday hooyadan Soomaaliyeed sanadka ay sheegayso iyo AJ sanadkiis waa isku dhacay isku mid ay noqdeen calaamada ay sheegayso wiilkayga Xasan Fareya la dhahaa fartaas oo ka go'an yahay farti way ka go'an tahay hooyada waxay sheegtay inuu xilligii dagaalkii ba'naa oo farta ka go'day asigana wuxuu dhahay hadalkaas wuu ku raacay bismillah hay nowad bal waa mahadsantahay daahir mar kale horta anaga waxaan diidanahay malahan wax kastana waxaa xiri kara furaha u haya wiilkan aan ku tuhmeyno wiilkeena inuu yahay dabcan in la wada hadlana waa qayb ka mid ah wax la rabo barnaamijkan in lagu kala furdaamiyo waxyaabaha kale oo meesha ka cadaan kara waxaa ka mid ah in wax un oo relate la ah familkiisa inuu meesha uu ka dhex dareemayo dabcan ha noqoto hooyadiisa qof 9 jir ah markuu xaafada ka soo tagayay in maamada waxa ay sheegtay meesha barakacayaasha iyo dadka masaakiinta lagu caawinayay hay'adaha joogay inuu raashin iyo waxyaabaha dadka masaakiinta loogu talagalay intuu ka soo qaado inuu xaafada u keeni jiray dabcan qof aqligiisa uu ma sha Allah uu ahaa waaye xasuuso badan inay jiri karaan dadka ma ahayn ku mashquul arrimo kale ee boostadaas iyo waxaad ku shaqaysan jiray marka anaga waan soo dhaweynaynaa wixii isku soo dhawaasho keenaya wada hadal keenaya muhiimadeena ugu weyn waxa waaye maamadan waa yeesha 32 sano iyo ka badan har iyo inoo jiif awoodi weysay ugu yaraan in qanaacad ay dareento inay wada hadlaan dabcan dad is dhalay markay wada sheekaystaan ay wada hadlaan calaamado badan oo hadda inta laga sheegin iyo hadallo badan oo inta laga sheegin suurtagal ah inay ka soo dhaxbaxaan anagana muhiimad ugu weyn intaas la ahayd shakigaas iyo shaki bax in la keeno si asna walaalkeen haddii qofkii aan tuhmeyne uu yahay hadduusan ahayn dabcan Xasan Cali lagama dhigi karo Calina Xasan cid ka dhigi karta malahan taas inuu ku baraarugo uu ogaado cid target ku ah malahan nafsad ahaantiisa laakiin tuhumkan iyo dabagalkan iyo wixii imaadeen baarna inaan shaki bax aan sameeyno si bari ka maalin asna shaarkiisa nadiif ah uu beledkiisa u maro anagana hadii wiilkeena uu noqdo waa khayr hadii uu noqon waayana dabcan maamada 32 sano nolol iyo geeri kuma ogeen talaabta xigta iyo sidii kale ay u samri lahayd ilaahay ha uu saqiraan dhihi lahayd loo soo baxana dabcan waa isla joognaa marka nambaradeenana waa siin kartaa wuuna nala soo xiriiri karaa okay waayay ana horta aniga fikira qaba horta arinta waska cadda ana shaki ma qabo wallahi bidin shiba maanta aniga inay AJ hooyadii tahay wallahi oo billahi oo talaashi kama qabo sababtoo aniga markii la soo haqaa sheekada galti buu noqday macnaha wuxuu noqday qof qalad ku jira oo dambiila emotional uu noqday
wuu qalqalay wuu jireeyey wuu mar calankii u qaatay mar intuu isku tuuray mar wuu kala hadlay ma faham marka warkaas horta arrintaanayti muxuu ahaa laba arrin hal arrin familka hooyada aan uga hadlaynaa hal arrin oo gaaban waxaan uga hadlaynaa AJ halka arrin hooyada way jirtaa in marka oo la wareysanayo hadal loo sheegayo waa hooyo aad iyo aad oo muxuu ahaa da'o ah dhib badan ay soo martay oo rafaadna uu ka muuqdo ma fahantay sidaas darteeda way naqon kartaa hadalka in loo toosiinayo haddii aniga aan dhihi lahayn hooyadan waxbaa la soo sii may da' wax lagu siiyo oo micnaha beentaas ku sheeg la dhaho hooyadan kuma jirto waayo aakhira la leeyahay waa la dhimanaa ma fahantay aniga uma malaynayo hooyadan in wax la soo siiyey waa hooy maskiin ah teeda kale gabadha walaashiisa ah iyo AJ wallahi oo bila oo tala waa isku eg yihiin aad iyo aad iskugu eg yihiin maantay midda AJ-na waxaan ka leeyahay AJ wuxuu dhahay hooyadaas haddii aniga ay sheeganayso waxaan ku casuumayaa qolkayga TikTok-ga ah ma fahantay marka aniga videogaas waa daawanayay dhowr dhalinyaro oo raxweyne u saarneed markaasaa waxaa la dhahay hooyadii soo raadiya oo asiga dhahay ma fahantay marka wiila wuxuu dhahay hooyada sidee lagu soo qabanaa yacni dadkii oo u dhowaa ee soo qaban lahaayeen bloga wada saartay micnaha qacdana maqalsi waxnaha u qaban oo wada AJ war AJ yo niyahow waalid la'aan lama noolaan karo qof oo macnaha oo adiga oo uusan ku dhalin waa ogaha waa dareemi karaa qof hadduusan asiga ku dhalin hadduu ku soo korsado xataa awaalow kugu leeyahay ma fahantay laakiin inaa waalidkaaga heshid oo meel laguga aqoonsado adigoo dadkaas oo kusoo korsadeen respecta u haysid waalidkaa inaa heshid wax ka fiican ma lahan saaxiib dad bini aadan waxay ku dhihi lahaayeen ka bax waalidkan hadduu waalidkaaga uu yahay brotherkayga soo dhaweyso hooyadaada xili waxay ku jirtaa la gacan qaban lahaa ay ku jirtaa ay garabkaaga baahneed ilaa ay haddana adig wax aa soo wadid ma lahan ilaa ay hadda adig waxaa noo abtirinaysaa qabiil laf ma la rabo meeshan waxaa la rabaa hooyay aabbaa la rabaa adigana waxaa siita ma haysid ilaa ay haddana kaama soo socdaan marka waxaa ku dhihi lahaa waalidkaaga dadkaas beri wixii lagu dhihi lahay waxaa ka muhiim badan waalidkaaga inaad gacanta ku dhigtid ma imaano inaad familkaaga keentid meesha keentid sidaas lagaaga foqo aniga xataa waxaan aaminsanahay arrintan inay wax ka jiraan wax inay ka jiraan marka hataa ninkan keligiisa ma ahaan dadka la tuumaya dad badanaa jiro oo dhunsan xitaa waxaa la sheegaye muxuu ahaa ii sheeg qurux ku dhiig la sheegaye hebelo saadaqa la sheegaye dad badan la sheegaya aniga dadkaas wax kama dhihi karo ilaa iyagana wax laga keenay laakiin qurux ku dhiig leh aniga waa ka shaki qabaa walaa oo bila oo tala qurux ku dhiig leh waa nin raxweyn ah dadka raxweynka dhiigooda ma dhumo wallahi ma dhumo qurux ku dhiig leh waa nin raxweyn ah hadduusan leysaan ahayn sababtoo laba video waan ka fiirsaday hal program asigoo oo raxweyn oo ku tartamayo lahjada qof walba ma keeni karo qofku u dhashtay keliya keeni karo
ma fahamtay برنامج كلا برنامج كان كل حساب سن هاي ذا ويرك كم قنية هنا هاي ذا مركي هاد ليسو أسيقو ترجمة يو نوافير سدي قد كي كجرتا أسيقو ترجمة يو ممنوع أنا وأرك داير على سو أو أفرح وين اسكت هاي وأرك دد بدن مكاني كران absolutely مكاني كران خروح كوديك لي niyahow dadkaaga iyo ehelkaaga lagama baxo saaxiib runta ku sheega runta fiican nin raaxweynaa tahay niyahow adiga waxba ku dheganaana wiilkaasiti adiga yaabo dhigaaga lagu jiraa faade hataa yaadan dadka dhumin yaa lagu soo raadsinin ma faante waxaa laga yaabaa hooyada iyo aabahaaga inay raxweyn yihiin wiligaaga ma keentay maya marka asxaabay dadka la tuumaa aaday u badan yihiin intaasaan ku ekeynaynaa fideoga inuu waa dheer yahay haddii la dhaho waa dhammaynaynaa wax dhammaanay ma ahan adduunka dhana isla qabsatay arrintan meesha oo kusoo gabagabow doonto bal aan isla aragno ya wiilkan iyo familkiisa arintooda meel ay ku gabagaboo doonto aan isla aragno marka insha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aadaan u mahadsantihiin intaanba haddaa ila soo gaarteen waxaa idinka codsana sida caadiga noo ahayd wadadii waxaan ku taaganahay kunka aan ku gaari lahayn asxaabay idinka la-aantiina ma gaari karo marka waxaa idinka codsanayaa haddaa ku cusub tahay subscribe-ka inaa ii saartid gambalalkana aad dalbatid rukumatid commentina aad ka baxsatid adiga arrintaa maxay kula tahay arrintan AJ kulli waa daabatay waa aragtay maxay kula tahay muxuu ahaa haddii hore noola joogtiinna waa ku mahadsan tahay commentigaaga dhac kasi ra'yigaaga waa inoo muhiim si dad kale micnaha videogayga oo u gaaro marka insha allahu tacaala sidaas isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu